بسم الله السلام عليكم والد ولي waxaad nagala socotaan channelkii ah Walid Legacy fadlan muuqaalkan aan ka hadlayno maanta waxa weeyaan caruurta aan ku korinayna meeshan saddex caqabadood baa hor yaala ama saddex qadiyadood midkay raacayaan ma is isolate garaynayaan oo bulshadii la nool yihiin ma iska go'doominayaan mise way ku dhex milmayaan assimilation waxa la yiraahdo oo qofku markuu milmo mabaadi'diisa akhlaaqdiisa diintiisa way lumaysaa mise positive integration waxa la yiraahdo is dhexgalid ay dhexgalayaan bulshadani ku jiraan iyagoo waxa wanaagsanna ka qayb qaadanaya waxa diintoodu ay ka soo horjeedana diidaya waxaan rabaa marka inaan idhaahdo waalidow muuqaalkan intaanan ka hadal fadlan channelkan adaa lagu sameeyay waxaana la yiraahdaa Walid Legacy subscribe dheh si aad muuqaaladan u hesho share dhow la share garee walaalada muslimiinta si xasanaadka aad u hesho aan u soo noqono caqabadaha da'yarteena macruuteena ay wajahayaan waxaan leenahay assimilation inay ku dhex milmaan dadkan ay ku dhex jiraan oo diintooda iyo akhlaaqdooda ay ku lunto waa mid diintu ay diiday في سورة مريم إلهي سبحانه وتعالى وحينو شيغي لبا جيل وحان ربا والدك إدغيسانيو إناد فكرتو أديو جيل باد كتر سنايد كو سو كوري بيئاد إسلامة عرورتنا جيل كلي كتر سنيهين كو كوري بيئاد إسلامة هين وفير سمركة تعبيرك القرآن كساريو جيل كان إلهي وحو يرسفاد إلهيين وحويان إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا مركة آياتها إلهي لغض الأخريو إلهي كلام كيسا إيو آيات كيسا أي مغلان إيغو المضو كدادانيسو ooyaya ayay sujuud la foorarsan jireen ayay rabbigood isu duleyn jireen jiilkii sidaas ah waalidow ee sifada lahaa waxa kala wareegay saaxadii ama waxa ka dambeeyo ku xigay jiil kale jiilkaas isna wuxuu lahaa laba sifood waa maxay labadaas sifood hawadooday raaceen meesha inay rabbi awaamirtiisa raacaan hawadooday raaceen markay hawadooda raaceen xarigi rabbigood way ka furteen salaadii ilaahay wuxuu yiri fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata واتبعوا الشهوات وفيرس marka labada jiil maadaama waalido aanu ka hadlaynay jiilasha iyo say u kala qaybsan yihiin jiilasha iyo sifaadka ay leeyihiin kala duwan bal u fiirso quraanka labadan jiil ay isku xigay qaabka uga waramay waxaan rabaa marka inaan dhaho in ay assimilation la yimaadaan ama ku dhex milmaan bulshada ismilankaaso ama milmidaas waxay keenaysaa mabaadi'dooda inay lumiyaan cabirkii nolosha inay lumiyaan akhlaaqda islaamka inay lumiyaan tawxiidka inay lumiyaan qodobka kale aan eegno isolation baa inay isgo'doomiyaan suuragal ma tahay waalid in aan go'doomino caruurteena oo bulshadan ay la nool yihiin aan ka go'doomino suuragal ma tahay haddiise aan isku dayno inaan go'doomino muddo intee leg baad go'doomin kartaa taleefanku maanta wuxuu isku xidhayaa geesaha adduunka ay ku nool yihiin waa adduun isku furan waa anagii globalization ka hadlaynay ma iskuulkaad u diidi ma inay caruurta dariska la ciyaaraan baad u diidi ma inay moolasha ku raacaan baad u diidi jawaabtu waxa weeyaan isma go'doomin karaan maxaa yeelay wax walboon ka hadlayno fadhiga iyo chiefka iyo taleefanka ugu imanaya fitnadu hadda banaankaba ma jirto guriga aad joogtay imanaysaa walidaalka waxaan rabnaa inaan dhahno isgo'doominta la iska go'doomiye bulshada qur'aanku ma amaanin waa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala qolo uu ka hadlaya yiri warahbaaniyatan ibtadacuuha ma katabnaa ilaahay uu leeyahay isgo'doominta iyagaa doortay waxaan anagu u qornay oon ku qasabnay oon waajib uga dhignay ma aha idan isgo'doomintaasuna mid suuragala ma aha qodobka inoo soo hadhay aan eegno waa qodobka ah bulshada inaan dhex galno qayb ka noqono annagoo khayrka ugu yeerayna arrinta iyada ah waxa weeyaan awaamirtii u horeysay ee rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam la siiyay oo ahaa istaag midkaagan jiifow yaa ayuha almudathiru qum fa andir warabbaka fakabbir wa thiyaabaka fatahir istaag bulshadan waajib baa kaa saaran dhexgal rabbigaa ugu yeedh weyne midaan u soconno waa midda rasuulka sallallahu alayhi wasallam khudbadii u horeysay ee uu madiine ka jeediyey maka ma ah madiina khudbadii u horeysay rasuulka ka jeediyey waxay ahayd miduu la hadlayay dad diimo kala duwan watay dhaqamo kala duwan watay thaqaafo kala duwan watay waxaa deganaa Jewish community dadkii yahuudda ahaa dadkii ma aragtay Arab paganska la oran jiray mushrikiinta Christian caadi ah iyo muslimiinta markaas mu'arikhiintu ay dhahan boqolkiiba 12 bay ahayn u fiirsa marka rasuulka sallallahu alayhi markuu yimid xadiiska Tirmidhi baa soo saaray Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu yaa warinaya bulshadii sidaa ahayd muxuu ku yiri ayuha an-nas afshu salam wa tud'imu at-ta'am wa silu al-arham wa sallu bil-layli wan-nas niyam tadkhuluna al-jannata bis-salam aw kama qala sallallahu alayhi wasallam wardado salaanta faafiya u fiirso bulsho kala duwan buu rasuulka sallallahu alayhi hadlaya kala diima kala dhaqamo ah muxuu ugu yeerayaa waxyaabo laga wada midoobi karo waxyaabo bulshada
bulshada iyadoo kala diimo ah ay ka wada shaqayn karaan. amniga, nabadda, salaanta, daris wanaagga diinteena waxay qabta wey midaasoo ugu yeeray. waa midda labaad, watudcimu tacaam, qofka gaajaysan ha iloobin, quudiya wax siiya. u fiirsa marka rasul sal slam wuxuu rabaa inuu dadka baro qofka gaajaysan inaad wax siiso waxaa ka horraysa inaad og tahay inuu gaajaysan yahay. qofkii waad salaantay, daris wanaag baad kula noolaatay. carruurteenna marka waxaan baraynaa in dariskooda ay ku dhahaan baarkinkaygaad isticmaali kartaa, taraashkaaga qashinkaaga anaa qaadaya. iskuulladii ay ka volunteer garayn karaan. and by the way my name is maxamed baa la yidhaa ay dhahaan. akhlaaqdooda iyo dhaqankooda ka turjumaya diinta. gabdhaheenna waxaan rabnaa inay dariska ku dhahaan baarkinka anaa le anytime waad isticmaali kartaa. vacation markaad aadaan qashinkiina anaa qaadaya. haddaad u baahataan ride anaa siinaya carruurtiina. wax walba oo markaa musaacida inaan u fidino. dhaqanka ee akhlaaqda ay ku soo jiidaan islaamka. rasuulku sala allahu calay wasalam midkaasuu baraya. marka waxaan rabnaa inaan dhahno islaamka wuxuu ina barayo ma aha inaan iska go'doomina bulshadan. carruurteena kama go'doomin karno. waalidka yidhaahdo islaamic school baan geyni, guriga kama baxayaan. maya, xagganay ku dhasheen, xagganay ku nool yihiin. waa in waddankan taariikhdiisa, luqadiisa, dhaqankiisa, isboortigiisa ay qayb ka mida noqdaan iyagoo muslimiina. sidoo kale in aanay ku dhex mulmin oo intay dhahaan dad mudaharaadayaan raacaynaa waxay doonayaan oo mudaharaadaan oo markaas salaadihii ay ka tagaan. lianna salaada ka muhiimsan kana weyn mudaharaadka. iyagoo marka mabaadi'dooda islaamka xambaarsan inay qayb ka noqdaan bulshada. oo maday noqoto mudaharaadyada lagu raadinayo masalan xuquuqda qadiyadda falastiin ama dulmiga dadka madowga lagu hadlay waxa lamidka qayb bay ka noqonayaan iyaga oo islaamnimadii ilaalinaya. ragga aan dhex boodayn, haddana salaadoodii aan ka tegaynin, oo ma aragtay ragguna aanay dumarka dhex boodaynin. waxa aan barin waa wax lianna meeshanay ku dhasheen, meeshanay ku korayaan, dadkanay ka mid yihiin. waxaan rabnaa mabaadi'dooda iyo habdhaqankooda islaamka in ay haystaan. waxaan rabaa inaan dhahno marka waalid waxaan ka hadlaynay waxa weeyaan caqabado ay la korayaan carruurta. waxaan u baahannahay marka maadaama layidhi sidaad u jabto ayaa loo dhutiyaa duruufteenna anagoo eegayna oo og inaan ka duwannahay dadka waddamada muslimiinta jooga, in haddana aan mabaadi'deenna inta aan xajisan karno xajisanno. carruurteennana middaa inaan ku korinno oon ku barbaarinno inay yihiin qayb bulshada ka mid ah oo aynay iska go'doominin oo aanay ku dhex milmin, laakiin iyagoo dhaqankoodii, habdhaqankoodii, akhlaaqdoodii, tawxiidkoodii, mabaadi'da islaamka wata ay bulshada door fiican ka qaataan. weli waxaad nagala socotaan waa janaalka adiga laguu sameeyey waalid ee layidhaha waalid legacy. fadlan wixii su'aala eed qabto hoos ku soo qor si xalaqaadka soo socda aanu uga jawaabno su'aalihiinna. janaalkanna saad u hesha muuqaalada waalidoo sabscribe dheh, walaalaha muslimiinta ana la wadaag si aad xasanaadka u hesho. intaa wixii ka dambeeya waxaynu ku kulmi doonaa xalaqooyinka kale oon ka hadli doono xanuunada dhimirka iyo say ugu badan yihiin da'yarteenna iyo carruurteenna iyo jiilkan jansiga la yidhaah iyo wixii xal ah. haadaa wallahu aclam, wasala allahuma calaa sayidina maxamed, wassalaamu calaykum waraxmat ullah.